anuu fahamkaan haysta waxaa weeye TPLF 20 iyo dhowrkii soddon ku dhawaadkii sano ay joogtay marka la barbar dhigo dhibaatada ay u geysatay deegaanka Soomaalida intii xukuumadihii ka horreeyay iyada Ethiopia u geysteen oo mayna geysan xukuumadihii hore markaad fiiriso dhibaatooyinka ay samayn jireen waxaa ka mid ah inaan xuquuqdii maamul ee aad lahayd aan lagu siinin aqoonsigii inaad shakhsi muwaadin oo waddanka ka tirsan inaad tahay inaan lagu ogolaanin dhaqaalihii inaadan waxba ku lahayn dhibaatooyinkoodu iyo mararka qaarkood oo dee dhibaato naf iyo maal bala macnaha ay samayn jireen laakiin deegaankeenu inta aan garanayo waxa u badqabay dhaqanku u badqabay karaamadii iyo sharaftii ay lahaayeen way u badqabtay diintu way u badqabtay laakiin waxay dhaafeen ma jirin nimanka muddadii meesha ay joogeen cid kasta oo isku dayday arrintaasi waxoogaha inay resist macnaha ka hor timaadana waxay siiyeen magacyo kala gedisan qofkaasi inuu argagixisan yahay inuu nabaddiid yahay waxaana la xalaalaystay saa darteed dadka dhiigoodii iyo cirdigoodii iyo hantidoodii baa la xalaalaystay taasoo keentay dadka labeentiisii inteeda badnayd ama inay waddanka ka cararaan ama la dilo iyo in inta iska soo hadhay madaxa foorarisay oo mataqaanaa qub iska taaganayd marka nimanka dhibaatada ay geysteen wax hadda waa u baahan in taariikh laga qoro oo wax u baahan mustaqbalka dadka iman doona in loo sheego si waaya arag xog ugu yaraan xogta iyo dhibaatada nimankaasi ay kaga tageen deegaankeena guud ahaan dalka jiilka soo socda in loo reebo oo taariikhda la qorayo iskuulada xataa ciyaalka curriculumka lagu daro waxyaabaha anu hadda aan goday markaan soo qaado magaalada markaan soo qaado aan aad u xusuusto waxaa ka mid ah qofka in la dilo way dhacdaa laakiin waxyaabaha goday aan ka soo marnay waxaa ka mid ah in ninka inta la soo bixiyo hooyadii xaaskiisii caruurtiisii ayagoo taagan hortooda in lagu dilo waad fahmi karaysaa marka arrintaasi xanuunka ay leedahay hooyo wiilkeedii mataqaanaa horteeda lagu dilayo ilmo aabihii isagoo fiirinaya hortiisa lagu dilayo islaan ninkeeda iyadoo fiirinaysa hortiisa lagu dilayo waad fahmi karaysaa arrintaasi xanuunka ay leedahay ayaga wax dhiba kuma ahayn waxyaalaha la yaab kala arrintaas way dhacday gudaha way ka dhacday ugu yaraan waxaan xusuustaa oo hadda soo taaban karaa laba nin mukhtaar aadan geedan iyo nin isna dhihi jiray maraas sheekh yuusuf dhacdadaas way ku dhacday waxaa kale oo jira dad ilaa haddaba inta la qabtay una aan war loo hayn ninka waxaa ka mid ah ninkaas nin gudoomiyaha degmada gudayna ahaa ugaasna ah oo la dhihi jiray miraad layli ilaa hadda habeen in la qabtay isagoo oo la jooga wiilku adeerku ahaa oo xilligaas madaxweynaha deegaanka ah in la qabtan baa gudamaysa ilaa hadda lama yaqaano ma gudamaysa marka xanuunka nimankaas ay ka tageen qofkii fahmaya waa xanuun aad u xanuun badan wey waxaan rajaynaynaa insha Allah inay dadkeenu ay ku filan tahay inay fahmeen nimankaas dhibka ay geysteen qof waxyaabaha hadda ay sameynayaan waxaa weeye isku day inay helaan jaanis kale oo ay dadkii haddana ku dhibaateeyaan u malayn maayo arrintaasi inay u suurageli doonto waxaan ka filaynaa waa wixaynu hore uga baranay dee aan iska celino cid kasta oo ayaga kasoo horjeedana aan garab istaagno oo aan isbahaysano cid kasta oo ayagana aan ahayn ama oo kale oo aan dhib ka dareena iska celino waa iska celin karnaa laakiin maanta in laynagu qaldo amxaari iyo waxaa dagaalamaya Tigray dowladdii federaalka iyo waxaa dagaalamaya Tigray inaga maxaa naga galay iyo amxaari goormeen heshiiniye waxa taa waa nacasnimo wey dowladda federaalka ninna ma laha qowmiyad hadda gooni u leh ma jirto
wasiirada hadda ku jira hebel baa taqaanaa waa Soomaaliya hadda qoomiyadaha kalena inta bay ku leeyihiin numberka in lagaga bato waa suurtagal oo inta badan de numberku waxay ku xiran tahay populationka adiga markaa ku diiwaan gashan marka qaarkoodna xuquuq aad leedahay waad waayi kartaa laakiin dowladda federaalka dowlad ay cidi gaar leedahay ma Oromo ma laha Amhara ma laha Benishanguul ma laha cid kale ma laha waa wax la wada leeyahay way hadda systemka hadda jirana ee dowladnimada waxaan barbar dhigaynaa kii hore jiray sidaadaba waa inaad markasta markaad mustaqbalka ka fikirayso ama waxa joogaad ka fikirayso waa inaad wax horena soo qaadata systemkii hore ee meesha ka baxay ee hadda rabo inuu soo noqdo iyo systemka hadda jira maxaa u dhaxeeya cadaab iyo ciqaab iyo dil iyo xarig iyo kufsi baa waxa aanu ka baranay systemka hore 3 sano ayaan waxaanu haysanaa nabadgeliyo xorriyo horumar xageen taageeraa marka caqligu nadiifta iyo dadnimada iyo garashadu waxay keenaysaa xataa inaad hadda cid taageerino cidda aan ka aragnay wanaag inaan taageero ta kalena waa inaan ka hortag samayno ma aha inaan iska fadhino halkan iska fadhino oo dhahno waxaa lagu dagaalamayaa dhese waxaa lagu dagaalamayaa Kombolja kamisa la soo gaadhay Arsabad la soo gaadhay bas way Arsabad hadii la soo gaadho oo heer ka gaadho qofka bas markaa waxay noqonaysaa qofkaas aan ogolaaday inuu Italiya taa waxay ka dhigan tahay inaad aqbashay ninkii shalay ku ciqaabay maantana biri inuu ku cadaabo anima Soomaalida waxaan kula talinayaa waxyaabaha aan macnaha lahayn ayaga dhaxdooda u dhaxeeyo inta xaggaas ka dhigaan inay u diyaar garoobaan sidii mustaqbalkooda u badbaadin lahaayeen cid kasta oo markaas ay dantooda ka dhaxarkayaanna inay isbahaysi ay la sameeyaan si looga hortago kooxdan waalan mataqaaneen shalay Ethiopia-ku ay u qaldameen inayna mar dambe loo qaldamin la iskaga qaban lahaa intaas ma shacabka Soomaaliyeed mataqaanaa soo jeedin